السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب قيمة بدن maanta muuqaal cusub muuqaalkana maanta waxaynu ku qaadanaynaa casharkeena 9 ee Microsoft Word. Waxaan kusoo guda jirnay barashada Microsoft Word ayaan kusoo guda jirnay. Casharkan ka hore waxaan kusoo qaadanay wax la yiraahdo page numbers ayaan kusoo qaadanay. Casharkeena maanta hadduu ay boyna raali ka noqdo waxaan ku qaadanaynaa wax la yiraahdo text box ayaan ku qaadanaynaa. Text box ayaan ku qaadanaynaa. aan isla aragno text box waxa uu yahay ugu horeyn waxaan soo kicinaynaa waxaan soo furaynaa dokumentigeena ama wordki aan ku baratikan jirnay ayaan soo kicinaynaa. Okay, wordka markii sidaan gudaha soo galno text box muxuu yahay? Text box waa nooc ka mid ah qoraalka ama waa box loogu talagalay in gudihiisa wax lagu dhex qorto. Okay, ugu horeyn sidee u sameeyaa text box ama sidee u adeegsan karaa oo isticmaali karaa? waxaan tagayaa halkan inoogu qorantay insert halkan ayaan imaanayaa. halkan markaan imaado fiiri header iyo footer iyo page number iyo garabkooda fiiri halkan waxaa noogu qoran text box. halkan ayaan click ku siinaya oo furaya. text box sida markuu iyaga maarta qaybo badan leh mid alla midka dootid ayaad ka soo qaadan kartaa. tusaale midkan ugu horeeyo kala sample haddii aan isugu dhufto oo symbol oo ku qoran tahay symbol text box ay ku qoran tahay halkan haddii aan ku dhufto halkan ayuu soo gelaya. waa kan text box kan ayaa loo yaqaanaa. kadibna gudihiisa waxaan ku qoranayaa okay waa kan box kani okay waa box logo okay logo aniga hadda sample waa tala galay in waa maaragtay wax lagu dhex qorto in wax la dhex qorto waa kan mujida macnaha wixii markaas u baahan tahay qoraal ah ayaad ku dhex qoran kartaa text box-kan. kadibna resize ayaad ku sameyn kartaa. haddii uu kugu yaraado waad weyneyn kartaa, haddii uu weyn yahayna waad yareyn kartaa. haddaba adigaa maamula macnaha adigaa maamula oo xakameeya meesha u baahan tahay aad u daraagareynaysa ama aad u jiidaysa. tusaale hadda qaybtan hore sadarkan dhan oo dhan inaan qabadsiiyaa raba. okay waa kan fiir mujida. okay halkan fiir qoraaladana hadda sample ahaan usoo qaadanaya. okay isaga ma rabo inaan koobiyeeyo. okay qoraaladanan sample ahaan usoo qaadanaa copy aa leeyahay control s control c. okay kadibna halkan basta ku dhex leeyahay fiiri mujida qaybtaas hore Soomaaliga kadibna qaybtan waxaan dhex gelshay oo maaragtay oo Englishka oo sample qoraalka ayaan dhex geliyay. text box marka boxyadan oo kale ayaa loo yaqaanaa way tiro badan yihiin. tusaale mar kale box kale aan soo qaadanaynaa insert ayaan leenahay kadibna text box ayaan leenahay waxaan iska soo qaadanaynaa boxkan ayaan soo qaadanaynaa. boxkan wuxuu leeyahay ama wuxuu madaxa ku wataa shape ayuu madaxa ku wataa fiiri waa kan mujida shape ayuu wataa oo haddii aan u baahanahay inaan weyneynin waa kan isagana halka ayaan qabadsiinaynaa oo sidaan ayaan ka dhigi karnaa waa kan. okay text box marka haddii aan u baahanahay inaan edit gareyno aan waxaa ka bedelana waa kan waa maaragtay hal mar waa dooranayna kadibna qoraalkeeni wixii markaas aan u baahanahay ayaan ku qoranaynaa. waa isla haynaysaa jecla. okay waa wax yar iska yara fudud waa maaragtay marka u baahan tahay inaad isticmaasho ama meel yar xog ah kasoo muujisay iyo waxyaabaha ayaa la adeegsada text box-ka. mararka qaarkoodna si weyn ayuu ku caawiyaa. okay waxaan u maleynayaa marka inaan isla fahanay text box sida loo soo geliyo. okay kawaran haddii aan u baahanahay inaan iska qaado sida isaga qaadaya. okay hal mar aan keli ku siinaya shape-ka ayaan dooranaya kadibna backspace ayaan leeyahay. okay kana waa lamid isagana sidoo kale hal mar aan keli ku siinaya kadibna backspace ayaan leeyahay. isagu dhan waa sida ayaa loo qaadaa oo waa iska yara fudud yahay. okay casharkeena 29aad halka ayuu noogu egyahay. sida ayuu nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. fadlan haddaad ku cusubtahay channelkeena subscribe inoo saar like nagu dhiirigeli wixii faaliyo comment aad qabtana nagu reeb qaybta faallooyinka.